شفت ذكر لا يدوني منه كنت تدول إسرائيل دين شفت ذكر لا يدوني منه كرسي فوق الظلم وضو ذكر ديبا أن لا تردوني منه كرسي فوق الظلم وضو ذكر ديبا أن لا تردوني منه دقالوغ ديقا ذكر كدوما وحبا ما دوني منه دقالوغ ديقا ذكر كدوما وحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkan dadkii inoo diyaariyey ee hawshiisa oo dhan ka qayb qaatay guud ahaan ilaa iyo kii soo diyaariyey iyo kii hawsha qabtayba waxaan leeyahay waan u mahadnaqaynaa. waxaanu mahad weyn u celinaynaa ilaahay oo maanta inagoo nabada meesha isugu keenay mar labaadna dadkii hawshan qabtay mahad ballaaran baanu u jeedinaynaa. mahad celin kadib waxa weeye anigoo magacaygu yahay suldaan cabdirashiid mawliid aw jaamac waxaan halkan isugu nimid oo ujeeddada shirku ay tahay shir nabadgelyo ah oo wada tashi ah oo ah abaskuul bari oo gobolka jarar. inagu guud ahaan waxaanu ka soo horjeednaa oonu shirkan u qabannay waxaanu ka soo horjeednaa go-aankii guddidii ay ka soo saareen loo xil saaray ee layidhi waa guddi soomaaliyeed ay soo saareen ayaanu haddii aanu nahay degmada Araarso abaskuul bari gebigiisuba si u dhan yahay waxaanu u aragnaa inaanu cadaalad ahayn waananu ka soo horjeednaa si adagna waanu u cambaaraynaynaa waananu uga soo horjeednaa. iyadoo dhammaan layska indha tiray xuquuqihii dadku ay lahaayeen iyo cabashooyinkii ay soo jeediyeen oo ay lahaayeen dadka deegaanka Araarso cabashadii ay dowladda u gudbiyeen iyaga ayaa keenay lama tixgelin waraysiyadoodii iyo wixii caddayma ahaa ee ay gudbiyeen wax maraga oo arrintaasi meesha maragyadii badnaa ee ka jiray iyadana lama soo qaadin. kuma salaysna go-aankani dacwaddii ay beeshu gudbisatay guud ahaanba. markaan intaa ka gudubno waxa weeye waxaan go-aankani wuxuu sii hurinayaaba dhibaato mar hore dhacday ayuu wuxuu weeye go-aan sii hurinaya oo labada beelood u horseedaya dhibaato aan maanta diyaar loo ahayn. waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda deegaanka gobolka jarar hay-adaha amniga in ay joojiyaan arrintaasi jawaab bixinta ay doonayaan inay hawshan ay ka qaadaan waanu ka soo horjeednaa dhammaanba. waxaweyaan aad baad u mahadsantihiin sida fiican eed uga soo qayb gasheen shirka. kolley aniga hadalka waa layga yaqaanaayo waa laygaga fiican yahay xagga. waxaan leeyahay anigu hawshii ay go-aankii ay dowladdu ku dhawaaqday waxa weeyaan haddii aan nahay salaadiintii abaskuusha bari waan ka soo horjeednaa anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca salaadiinta kaleba waxaan ka soo horjeednaa waxa weeyaan waana diidannahay go-aanka waxa weeye waxaan aad baanan uga soo horjeednaa waxaana ku baaqaynaa dowladdu inay ka waantoodo oo waxaan dadka isku sii diraya ee isku dhufanaya inay dowladdu ka noqoto. waxa weeye dowladdu waa dowladeennii dadkuna waa dadkeennii isbeddel kastoo dhacaaba inay cidi ka faa'iidaysato oo ay si ay doonto ay ka yeesho looma baahna. dadkani way wada noolaanayaan shalayna way wada noolaayeen berrina way wada noolaanayaan waa wiil iyo abtigii baan nahay
waxaweye dad wada dhashay baan nahay markaa ma doonayno inuu isbedelku annaga isku kaaya diro oo uu ka faa'iidaysto siduu isu kaaya diri lahaa dad wada degan baan nahay waana wada deganaan doonaa waxaweye dowladda waxaa leeyahay ha ka waantowdo hawsha iyada ah farahana dadka ha ka qaado dad walaalaa weeyaan meel la kala tegi maayaan nin walba meeshiisiina uu yaqaanuna degan yahay wax dadoo xad ay leeyihiin oo u dhexeeyo oo maanta ay ku kala joogaanna ma jiro waxaweye nin walba halkii uu degayey unbuuna degan yahay uuna deganaan doonaa markaa dowladdu meel cusub yayna keenin oo ujeeddo intay keento yayna dadka isku dirin baan leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim shirka waan salaamayaa salaanta islaamkaad ugu salaamaya assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan cambaaraynaynaa guddigii waxaa ka dhoweyd yidhi waxbaan meelaha maraynaa waxaan qabaa sida hadda uga horreeyeen qoladaniba inay iskuulkaana dhiibeen laakiin annagu odayaasha oda dhaqameed baanu nahay waxbaanu kabnaa wax ma hadlayno waxa weeye waxaanu ogol lahay inaan wada noolaanno inaannu wada cunno inaannu wada cabno hadda ka hore dadkani haddii alla ku reebo wada dhasheen wayna wada deganaayeen shirka guddigaas maalinka maanta waanu cambaaraynaa waxay ku kaceen isku dhiib bayna sameeyeen inaannu dhagax saarannahay dowladdu haddii alla ku roo yahay way og tahay dowladdu in dhagax madaxa naga saaran yahay sidaa aawadeed dhagaxa waannu iska qaadi ma ogolin ilaahay baana abuurtay naf baylee baanu leenahay dad islaananu nahay dibadda kamaanaan imanin dadkii dadka u dhashay baanu nahay dad dibid xerka ka soo dhex ma nihin sidaa aawadeed ma ogolin guri inta lagu shiro la yidhaahdo yayna soo dhaafin toga sidii haddii alla ku leeyahay xaabiistii bidaar magac kale iyo cabdiraxmaan iyo xaaji cabdi iyo maanta oo kale lagacyadaa lama sheegto maanta aniga cabdibidaar baa la yidhaah cabdibidaar baa la yidhaahaa maanta aniga wixii ka soo baxay dawladda hadday tahay baarlamaan oo ay fadhiisato oo mooshin soo saarto hadday tahay wasiiro hadday tahay madax ciidan oo hoggaan nabadyaa oo janana oo kornayla oo laba aliflaa oo mato halaqaa war dawladdu ma inaa cabjarbaa mise waa dawlad dhisan oo taxan oo dhisan weeyaan hadday dawladdu ina cagjar tahay waxa uu leeyahay iyo wixii uu ku hadlayba waxaanu ka odhan waanu ognahay hadday dawlad taxan oo dhisan oo wasiir leh oo kornayl leh oo janan leh oo madaxweyne leh oo madaxweyne ku-xigeen leh oo jirta hadday tahayna waxaanu ka odhan baanu ognahay waxaan leeyahay waxaan maanta ka soo yeedhay meeshan nimankani waxay ahaayeen niman isku dhufasho doona waxay ahaayeen niman kelinkisha lagu hayo oo lagu cabiidiyo waxay ahaayeen niman say xadhigga isaga goyn lahaayeen ay xabadda u ridi lahaayeen ku talagalay bay ahaayeen waxa meeshaa mariyeyna wuxuu ahaa madaxweynihii dalka loo soo dhigay buu ahaa ee ma ahayn cid kale oo lagu baaba ma ahayn ilaahay waxaa lagu mahadiyaa maanta inaannu taagnida ku buuxinay dhulkaba taagnidii baan ku buuxinay mana fadhiisannaba waxaana suginaa waa dhimashadana waxaannu ku dhiban xornimo dannimo caloladeyd ragannimo yaannu ku dhibanaynaa haddaan dawladdu soo gaadhin haddaan wasiirraddu soo gaadhin haddaan janannadu soo gaadhin haddaan hoggaamadu soo gaadhin haddayna ka kicin haddayna arrintaa xal degdega ka gaadhin waxaan salaamayaa shirka sharafta leh ee sida fiican loo soo abaabulaya nabadgelyada ah waxa aan ka hadlaynana waa nabadgeliyo waxaan nabadgelyo ahayn kama hadlayno waxaanu ku jiraa waa nabadgeliyo waxaanu diideednahayna waa dulmigana cidda waddaa haddaysaan leenahay ciddiga dulmiga waddaa haddaysaan leenahay waxaanu ka cabanaynaana waa odayaashii iyagoo waxba garanayn loo yeedhiyee hadalka khaladkaa ku hadlay odayaashii iyagoo waxba garanay inta loo yeedhiye hadalka khaladkaa ku hadlay odayaasha weeye kuwaanu ka cabanaynaa xukunkoodiina waanuna ka soo horjeednaa waanuna diidnay mana aqbalayno inaan akhriyo go'aamadii ka soo baxay shirkan ama bayaanka waxa loo yaqaano shirkuna waxa weeyaan shirkii wadatashiga beesha abaskuul bari ee gobolka jarar marka kadib markay beeshu garwaaqsatay
xuduud xadgudubka xaqiraadda iyo dhulboobka ay dabada ka riixaysa xukuumadda dowlad deegaanka soomaalidu fadhigeeduna yahay caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga iyada oo garab siinaysa mid ka mid ah beelaha walaalaha ah ee abid ku wada noolaa dhulka uu allah subxaanahu wa tacaala ku wada beeray rabtana inay xoog ku dejiso beesha uu mas-uulka ugu sarreeya deegaanka hayb ahaan ka soo jeedo islamarkaana uu amray in hay-adaha amniga deegaanku xoog ku dejiyaan beelaha abaskuul bari xoog lagaga soo rarayo kadib markay beelaha abaskuul bari garwaaqsadeen in cabashadii iyo dacwaddii ay waxgaradka beeluhu gaadhsiiyeen hogaaminta xukuumadda in ay noqotay hal bacaad lagu lisay si badheedhanna ay xukuumaddu dabada uga riixayso damaca dhulboobka ah ee ay beesha aan walaalaha nahay waday muddooyinkii ugu dambeeyey una muuqata mid go'aan wada jir ah lagu qaatay fulinta damacaas mala-awalka ah kadib markay beeshu dhegaysatay warbixintii guddigii xaqiiqa raadinta loogu diray magaalada dhagaxbuur oo toddobaadadii ugu dambeeyey beesha madaxweynaha deegaanku ka soo jeedo ku boobaysay beerihii beelaha abaskuul bari ku lahayd agagaarka magaalada dhagaxbuur sida dheenta xogtaas oo ay guddigu ka marakaceen jiritaanka xogtaas indhahoodana ku soo arkeen boobka iyo calaamadaynta lagu wado dhulkaas ay beeshu lahayd boqolaalka sano ee u dambeeyey kadib markay qaybaha kala duwan ee beelaha abaskuul bari sida hogaamin dhaqameedka odayaasha dhallinyarada iyo ururka haweenka beeshu dhegaysteen xadgudubka qaawan ee ay ciidanka gaarka ah ee deegaanku ku wadaan sanadkii u dambeeyey deegaanada beeshu ay deganaayeen kuwaas oo isugu jiray jirdil barakicin cay iyo aflagaado loo geysanaya shacabka reer guuraaga ah iyo kuwa degan magaalooyinka ay dowladihii hore ee deegaanku ku fuliyeen mashaariico horumarineed sida iskuul xarun caafimaad iyo barkadba balse ay xukuumadda maanta jirtaa ku riyoonayso in ay ka rarto beesha goobahaas oo ay abi deganaayeen kadib markay dhegaysatay warbixintii guddiga xeerbeegtiga beelaha abaskuul bari laga soo xulay si ay u darsaan una turxaan bixiyaan go-aankii faasidka ahaa ee lagu shubay guddigii magacuyaalka ahaa balse loogu magacdaray waa guddi soomaaliyeed waxay guddiga xeerbeegtigu caddeeyeen in guddigu ku sifoobay eex iyo cadaalad darro fuliyeyna keliya wixii looga sheegay dhinaca xukuumadda islamarkaana ay guddigu xeerbeegtigu heleen caddaymo dhab ah sidaa daraaddeed gebagabadii shirka nabadda iyo wadatashiga beelaha abaskuul bari ee gobolka jarar waxay ka soo saareen go'aamadan hoos ku qoran lambar 1 waxay beesha abaskuul bari ee gobolka jarar mar walba u taagan tahay ilaalinta nabadda iyo wada deganaanshaha beelaha walaalaha ah ee gobolka iyo deegaankaba guud ahaan islamarkaana waxaanu ku baaqaynaa joojinta dabaka riixa ay xukuumadda dabada ka wado ee beelna lagu soo dejin beelna lagu barakicinayo taas oo u muuqata in isbeddelkii ka dhacay deegaanka cid gaara looga faa'iideynayo lambar 2 waxaanu si adag u cambaaraynaynaa go-aankii cadaalad darrada ahaa ee laga soo malmaluuqay hoggaanka sare ee xukuumadda looguna danaynayey beel gaar ah iyada oo la iska indhatiray dhammaan xaqiiqada iyo xaaladda ka jirta dhulkaas sababtoo ah xeerbeegtida beeshu markay ogaadeen dhaliilaha iyo deelqaafka ka muuqda go-aankii ka soo baxay guddigii gacanku rimiska ahaa ee loo xilsaaray xallinta dhibaatada labada beelood ee walaalaha ah garwaaqsadeenna in la baalmaray xaqiiqada taalay dhulka islamarkaana cadaymihii ay keeneen beeshu aan waxba laga soo qaadin
waxay beeshu si cad u diiday go'aankaas cadaaladda baalmarsan waxayna caddaynayaan in go'aankaasi uu ahaa mid aan ku salaysnayn xaqiiqada dacwadii beeshu gudbisay iyo xaqiiqada ay soo arkeen guddigu in go'aankaasi uu yahay mid lagu baalmaray makhraatiyadii iyo cadaymihii iyo doodii la duubay in guddigaasi uu yahay mid sii hurinaya dhibaatadii u dhaxaysay labada beelood in go'aanku uu guddigaasi gaadhay mid sharaf dhac ku ah guddigii gacan ku riiska ahaa ee hawshaas loo igmaday in go'aankaasi yahay mid ay maamushay cid ka baxsan guddigii hawsha loo xil saaray uuna yahay mid la isu yeedhiyey qodobka saddexaad arrimaha aan soo sheegay waxay hoos yaallaan qodobkii labaad waxaannu ka digaynaa cawaaqib xumada iman karta dhulboobka iyo barakicinta lagu hayo beelaha abaskuul bari iyada oo loo adeegsanayo shaadh dowladeed laguna bartilmaameedsanayo hantida beelahan iyo maati isugu jirta haween iyo dhallaan aan waxba galabsanin balse keliya loo bartilmaameedsanayo haybkooda qodobka afraad waxay beelaha abaskuul bari ee gobolka jarar ugu baaqayaan xukuumadda deegaanka soomaalida maamulka gobolka jarar iyo hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan inay joojiyaan boobka iyo deegaamaynta cusub ee lagu hayo dhulkii beeshu lahayd abidkood oo ku teedsan agagaarka magaalada dhagaxbuur sharcigana la hor keeno cid kasta oo qayb ka ah boobka dhulka haddii ay jirto cadaalad ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta deegaanku lambarka shanaad waxay beelaha abaskuul bari ee gobolka jarar ku baaqayaan in xukuumaddu xoog saarto hirgelinta mashaariic horumarineed oo lagu gaadhsiinayo dhammaan muwaadiniinta deegaanka gaar ahaan goobaha ay beeshu degto halka ay xukuumaddu xoogga ka saartay barakicinta iyo xayiraadda ay ku wadaan beelaha abaskuul bari qodobka lixaad waxay beeshu ka digaysaa in barakacayaasha ku nool qolloji loo adeegsado dana siyaasadeed laguna naas nuujiyo qandaraasle raba inuu beelaha walaalaha ah dhexdooda dhigo dhibaato hor leh waxaannu sidoo kale uga digaynaa hay-adaha caalamka inay ka fogaadaan inay ku dhacaan dabin siyaasadaysan kuna salaysan dhulboob cusub oo ah agagaarka wadal lambarka toddobaad waxay beeshu saluugmo xoogle ka muujinaysaa cadaalad darrada ku wajahan saami qaybsiga heer deegaan heer gobol maamul magaalo iyo degmada bilcilbuur waxayna ugu baaqaysaa xukuumaddu inay si dhaqso ah dalabka beesha uga jawaabto lambarka ugu dambeeya ama ugu dambayn beeshu waxay isku raacday go'aanada sare ku xusan iyada oo ugu baaqaysa soomaalida dhammaanteed maamulka dowlad deegaanka soomaalida iyo dowladda federaalka ah hay-adaheeda kala duwan inay si dhow ula socdaan dhibaatada lagu hayo beesha abaskuul oo ah dad lagu yaqaano dulqaad iyo nabad jacayl islamarkaana beeshu ayna marnaba qaadan doonin wixii gardarro ah ee la isku dayo in si aan sharci ahayn lagu mariyo dhinacay doontaba ha ka socotee ama dhinacay doontaba ha ka timaado dagaalooga dhiiga dadka ku dawoobo wax